gudoomiyaha golaha gurtida Somaliland mudane Saleebaan Maxamuud Aadan ayaa shahaado sharaf gudoonsiyay gudoomiyaha gobolka Sanaag Axmed Cabdi Muuse Axmed Istabar. Gudoomiye Saleebaan ayaa sheegay in uu shahaado sharaftan ku mutaystay gudoomiyaha gobolka Sanaag nabadeynta beelaha walaalaha ah ee wadadega gobolka Sanaag, taas oo marar kala duwan la isku dayay in nabadgelyo la dhex dhigo beelahaasi aan si dhab ah u hirgelin, balse gudoomiyuhu ku guuleystay xirista nabadda beelahaasi. munaasabada lagu gudoonsiinayay shahaado sharafta oo ka dhacday xafiiska gudoomiyaha golaha gurtida ayaa gudoomiyuhu waxa uu gudoomiyay Axmed Cabdi Muuse ku amaanay in uu markasta ka shaqeeyo xasilinta nabadgelyada iyo horumarinta gobolka Sanaag, isla markaana uu golaha gurtida kala shaqeeyo arrimaha nabadeynta iyo nabadgelyada. aad baan magaciisa iyo magaca golahaba aad baan u bogaadinaynaa ugu mahadnaqaynaa inuu shaqo fiican gobolkana ka hayo idinla qabtay. aad baan u mahadsantahay gudoomiye. haddana bogaadintaada waan ku darayaa gudoomiyaha iyo guddida golahaba runtii aad iyo aad baan u mahadsantahay.